Waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Ruushka oo markii ugu horeeyay khasaaraha ka soo gaaray Ukraine qirtay Ukraine oo gantaalo looga soo weeraray dhinaca Belarus Putin oo heegan qaasaha geliyay hubkiisa nuclear-ka khasaaraha ilaa hadda gaaray ciidamada Ruushka Putin oo rabo inuu la kulmo madaxweynaha Ukraine muwaadiniinteeda oo ku booriyay inay bambaanooyin ay sameystaan ciidamada Ruushka oo ku guuldareystay inay dhibaatooyinka ay ka wadaan wadanka Ukraine ay sii wadaan ayaan daawadayaal warkeena idinkugu soo gudbin doonaa haddaba daawade haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya dhibaatada Ukraine ka jirto ayaa waxay tahay mid aad cirka isugu sii shareeraysa Ruushka ayaa markii ugu horeysay qirtay khasaaraha ka gaaray wadanka Ukraine dowladda Ruushka ayaa markii ugu horeysay sheegtay inuu khasaare ka soo gaaray dagaalka ay kula jiraan wadanka Ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa markii ugu horeysay qirtay khasaaraha hase yeeshee ma aysan cayimin wax tiro ah oo khasaaraha ka soo gaaray dowladda Ruushka go'aankan ay soo saartay ayaa waxay u muuqanaysaa inay si dhab ah kaga hadlayso wax kasta oo dhibaatooyin ah oo ka taagan wadanka Ukraine inkastoo Ukraine ay dooneysay inay wax waliba ay ka fogaato haddana lama oga dhibaatooyinka mararka qaar jira sida markasta looga gudbi kara dhanka kale Ukraine ayaa gantaalo looga soo weeraray dhinaca wadanka Belarus gantaalada nooca loo yaqaan Iskander ee laga rido Belarus ayaa lagu weeraray wadanka Ukraine gelinkii dambe ee shalayto sida uu sheegay taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine weerarkan ayaa yimid kadib markii xafiiska madaxweyne Zelensky uu shaaca uu ka qaaday in uu sargaal iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo Russian ah ay ku sugan yihiin wadanka Belarus ayaana haatan u muuqanayay in uu doonayay in uu mar kale uu garab buuxa uu siiyo dowladda dalka Ukraine uu hogaamiyo madaxweyne Vladimir Putin iyo xulafadiisa ayaa haatan waxay u muuqanayaan inay awood siyaasadeed ay doonayaan inay ku muqooniyaan kooxaha sida weyn uga soo horjeeda hanaan siyaasadeedkooda Vladimir Zelensky madaxweynaha wadanka Ukraine ayaa doonayay in uu go'aamo la yaab leh uu qaato bayaan laga soo saaray Ukraine goorsii horeysay ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko uu qaaday mas'uuliyadda xaqiijinta iyo sidoo kale dhammaanba diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ee gantaalada yaala gudaha wadanka Belarus aysan dhulka ka kici doonin inta ay reer Ukraine safarka ay ku jiraan wada hadalkan ayaana waxa uu mid faa'iido fara badan ugu jiro dowladda Ukraine dhanka kale Putin ayaa heegan geliyay hubkiisa nuclear-ka xilli cabsi xoogan ay soo wajahaysa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku amray taliska militariga Ruushka inay heegan qaas ah ay geliyaan hubka nuclear-ka iyo sidoo kale in qalabka la xiriiriyo waana heeganka ugu sareeya ee la gelinayo istiraatiijiyadda gantaalada Ruushka isagoo la hadlayay madaxda sare ee militariga oo ku jiro wasiirka gaashaandhigga Sergei Shoigu ayaa Putin waxa uu sheegay in dalalka reer galbeedka ay saameyn iyo ficilo saaxiibtinimo ay haatan ay doonayaan inay u geystaan wadanka Ruushka tanina waxay u muuqanaysaa mid uu dhibaato badan uu doonayay inuu geysto madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin iyo kooxdiisa gaarka ah ayaa haatan waxay doonayaan inay tallaabooyin adag ay qaadaan haddii tallaabooyin adag ay qaadaan waxa ay u muuqanaysaa in dhibaato badan ay soo gaarayso shacabka reer Ukraine ayaa baqdin xoogan haatan haysato iyadoona dowladaha caalamku ay si weyn uga kala hadlayaan xaaladaha kala duwan ee haatan jira lama oga wax walba sida ay isku bedeli karaan laakiin madaxweyne Zelensky ayaa doonayay in uu isbedelka dalkaas Ukraine uu noqdo mid faa'iido fara badan uu ku heli doono walow dowladaha dunida ay aad ula socdaan wax waliba haddana madaxweynaha wadanka Russia ayaa go'aankiisa ugu weyn waxa uu yahay inuu iska caabiyo wadan kasta oo haatan doonayay inuu dagaal uu ku soo qaado dhanka kale wada hadallada u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka ayaa lagu wadaa inuu bilowdo maanta Isniina sida uu Belarus ay si cad u sheegtay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson in 24 saacadood ay soo socdo in ay weerarada ay ku garabsiin doonaan militariga Ukraine ayaana sheegay in xadii waqtiga adag ay ahayd oo ciidamada Ruushka ay dhabarjab ay u geysteen
wasaaradda caafimaadka Ukraine ayaa sheegtay in 352 qof oo rayid ah ay ku jiraan 14 caruur ah la dilay tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay sii laba jibaaraan. Barasaabka Kiev ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay si buuxda gacanta ugu hayaan magaalada kadib markii wadooyinka ay ku dagaalameen ciidamada Ruushka ay gebi ahaanba ay ka baxeen. Cabsida Ruushka ka jirta ayaa waxay tahay weli mid taagan, inkastoo hadda laga cabsi qabo xukuumadda Moscow in ay awood kale oo cusub ay la soo baxdo. Haddii xukuumadda Moscow awood cusub ay la soo baxdo, dhibaato badan ayaa soo gaari doono. Sidoo kale waxaa la sheegayaa khubarada Ruushka in ay wadaan go'aamadii ugu dambeeyay, iyadoo Singapore ay haatan kusoo rogtay cunaqabateyn ku habboon Ruushka. Singapore waxay rabtaa in ay kusoo rogto cunaqabateyn ku habboon Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee gobolka magaalada Vienna Belkrish ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka wadankaasi ay go'aan cad ay qaateen. Singapore ayaa ka mid ah hadda dowladaha soo korayay, iyadoona aad ay u sheegeen in ay dhibaato kasta ay noqon doonto mid ay si qaas ah ay kaga hortagi doonaan. Dowladda Russia ayaana haatan u muuqanaysa in ay awoodeeda ay doonaysa inay mar kale si buuxda ay u tijaabsato. Qaramada Midoobay ayaa iyana waxay muuqataa mid kaalin weyn ka qaadanaysa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay goobta qashinka qubka shuucida Ukraine ay hadda ay tahay mid gubanaysa. Hay-adaha qaramada Midoobay u qaabilsan ilaalinta nuclearka ayaa sheegtay in gantaalada ay ku dhaceen goobta qashinka shucaaca ee Kiev, balse ma jiraan warbixino sheegaya in uu burbur soo gaaray dhismayaasha ama calaamadaha muujinaya in la sii daayo walxaha shucaaca ah. Bayaan uu soo saaray agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta nuclearka ee caalamiga Rafael Corso ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Ukraine ay ku wargeliyeen xafiiska inuu shaqo joojintii habeenkii hore. Taasina waxay u muuqanaysaa in ay dhibaato badan u dhalan karto. Dadka shacabka ah ayaa looga digayaa inay gudaha u galaan qaybo ka mid ah halka shucaaca uu ka jiro, iyadoo dowladaha duniduna ay si gaar ah ula socdaan. Tanina waxa ay ka dhigan tahay xaaladaha adag ee haatan ay la kulmayaan dowladda dalka Ruushka. Dhinaca Japan ayaa sheegtay inay Tokyo kala shaqeyn doonto xulafada tallaabooyinka SYFT-da ee Ruushka kasoo horjeeda. Xogayaha golaha wasiirada Japan Hiroshige Matsuoka ayaa sheegay in Japan laga codsaday inay ku biirto tallaabooyinka ka hortagga Ruushka ee wadamada reer galbeedka, ayna kala shaqeynayso sidii ay tallaabooyin u dhaqan gelin lahaayeen. Xukuumadda Japan go'aankan ay soo saartay sidoo kale dhibaato ayay ku noqon doontaa madaxweyne Vladimir Putin iyo xulafadiisa ayaana caqabado adag haatan wajahaya. Lama ogasa wax kasta sida ay u dhici karaan. Wadamada dunida ayaana il gaar ah ku haya wax waliba sida ay tallaabooyin ay u sameyn lahaayeen. Dhanka kalena, Austria ayaa iyana waxay tahay dowlad kale oo dhibaatada haatan Ukraine ka socota sheegaysa in ayna marnaba loo dulqaadan doonin. Australia waxay sii doon doontaa qalab military oo waxayna ay u muuqataa inay dowladda Australia ay si cad ay u garabsiin doonto dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Vladimir Zelensky. Ku dhawaaqista waxa ay u muuqanaysaa mid dhibaato badan ku noqonayso dowladda dalka Ruushka. Australia waxay cunaqabateyn ku soo rogtay in ka badan 350 qof oo Russian ah oo ku jiro Putin tan iyo Khamiistii. Guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga intaa. Haddaba daawada, haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share iyo comment-iga noogu dadaala. Waad mahadsantihiin. Nabadgelyo.